ودعوة كم إذا دعوينك يقولون حين تبنى البعض وأنا دبعتوينك إنه كده حنا قربها نسوق حنا والله بدنا يراها وصفة معليات من نية اللي بيتبنجر من نية اللي حيتبنجر جعل هذا وقبل القرآن الكريم كه بيش رمضان بركة سنة عمل كوضها عبادة باهي هذا والله ما تندر يرادا واحد لي ولا الكود كوين وداديس يسوون مركعتها شاني لواتا هذا تلوب كاي واحد كدعضي مقالة هذا كانساس سيتي oo ku taal gobolka Missouri ee cariga Mareykanka hadaba inta aanan guda galin faalaatan naxdinta badan bal aan marka hore daawano dhalinyaradii gafka loo geystay iyo godobta aysan mudnayn ee geeriyootay ficilka ay sameeyeen iyo taraawiixda qaabka ay quraanka u akhrinayeen geeridooda ka hor الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاء بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما سبحانه ميل بدري كجوكتنا الله وإحنا كون رجالي عافماد يا عباد السبحانه عمل خير دكتور مراد الله إنك بدنا بهم مراد كسمت خير كله هو عنوسنا عافماد تامسي وكو جريود الجنة وتجونه ويجيله كو لقى جريود نسمر يمان كسيو كو دش عايزته بعد شو بركي كو دل سوين دل بركي سلسيو وعلى مراد ذلك اللي يورنا بضد الجوك يد بالجوك سومالية من السنة الله وين موجودي سريع هذا هو وحي بهذه الجوشة intii hore u joogtay gacalo barakooba intii nadibna laga soo beertay waa weeyay subscribe si dhaag joogin wuxuu yahay saameyn iyo khayr koo la tilmaamo iyo dhiirigal ee si guud gal barnaamijkeena runtii waa dhacdo uguba iyo dhibaatooyinka ee qurbaha ka dhaxlay waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo isdishay hadaba kuwa isdilay iyo kan dilayba waa walaalo asaate waxa jira wax dareen ahaan qalbigayga aad u taabtay intii nii maqashay marna ahaantii qalbigeena gilgalay intiina aan maqlin runtii qalbigeena taawan doona waa in dhalinyarada tan isdilaysa hooyadood 10 sano ka hor iyada ruuxeeda la dilay agoonna ay ahaayeen xalagu lagu dilanaa ay ahayd xaaja aan wacleen iyo magaranaysa ay saameyn dhibteeda wadata
haddaba waxa lama horaan inaynu qisada ka sheekeyno iyo dhalinyarta rajada iyo agoonta ee dhibku saameeyey dhacdadooduna maanta ay bulshada Soomaaliyeed haysato. dhalinyarada tan Soomaaliyeed waxa la yiri iyo hooyada ay geeriyootay waxay ka dhimatay 3 ma aha 6 caruur. 6da caruurta 3 waxa qaatay qaraabadii iyo qoyskii Soomaaliyeed ee markaa eheladaas u lahaayeen geeriyood. 3na waxa qaatay gaalada tan la yiraahdo ma garanaysaa ay dhasha daryeel iyo daawan u haynaaye qurbaha loo soo qaxay intifaaca kaliya Soomaali u haystaan ay tahay inay dhashooda ka qaataan. waxa dhacday 3dii qoyska Soomaalida ay qaadatay 2 kamida waa kuwa aad quraankooda dhageysanayeen Allah u naxariisto. waxa ayaan kuwa markasta masaajidka ku xiran oo quraanka akhriya oo waxa weeye taraawiixda xataa lagu nastay iyo cibaadada ee bahay inay bulshadooda markasta samaa iyo khayrka u faraan. alla wuxuu qadaray marka dhalinyartii oo cishihii soo tukatay oo taraawiixdii soo tujisay inay gurigooda soo aadaan. waa 3dii qoyska Soomaaliyeed la joogay. haddaba labada quraanka akhrineysay iyo mid kale oo walaalkood oo kii ku saddexaad oo la socda ayaa gurigii soo aaday. waxa jira baa la yiri mid kamida 3da gaaladu ay haysatay ama ay korisay oo daadiisu markaa 20 jir ah. asaahate quraanka yaqaanay oo cibaadada mararka qaar markii hore imaan jiray. waayadii damase ku goodinayay inuu islaamka meeshtan jooga dili doono midna uusan deynin. diinta tan ay wadana ay tahay midaan xaq ba ahayn oo sax ahayn. dabata goodintiisii iyo hanjabaadtiisii dan lagama gelin waxa la yiri وهذا المشكلة هي يدهيو جيسيس. أساعته درانكي يفعلذي وكفانا يؤونه هيستفعل فيعن أيوك قدبي وسوق عته باسكولات دايته قولي وكوجا ولا الذيس إنه يدقيه وهالكاسة دادو مقارنة سايا يكو هيسو أيو ميلو دو يستاج دايته دو يستاجي وكان كوبلا ورساستي ويلك فنانة دعس أو مركا حامدو حوجا سيجارة وإشارة يوم ونعبيه دايته حبدي بمدح كجبابي إلا ومدح سيكا دقيقة من درانك آدانه وسنعيقي كاري دايته كي كلو سو جنسدي والله بعد isagana sidaas la mid ah madax ayuu rasaasi kala dhacay. kii yara baa la yiri dulbadiiba ama ugu yara oo ahmideena arag ama quraanka aan akhrinayn ayaa dhanka guriga u cararay. iga fura iyo qeyladii uu lahaana waxa la yiri isagu wuxuu ku fikiray in uu magaranaysa ay albaabka uu si qaraaco oo uu si furo intuu kan ku maqan yahay dabaatana uu ka daba tago oo guriga iyo wixii ku jiraba dabka saaro. alla se wuxuu qadaray dulbadiiba kii yara albaabkii hadii laga furay in la xiray oo gurigii lagu cararay. rasaas hadduu riday waxba la haleeli waayana oo uu iska noqday. haddii uu noqday dulbadiiba waxa weeye Soomaalidii meesha iyo nawaaxiga joogtay hadalkii iyo sheekadii iyo ficiladii ninka kala la maqlay oo waxa la dhameystay oo la rumaystay hanjabaadiisii hore inay ahayd wuxuu dhab ka yeelay. wixii dukaamada iyo nawaaxiga iyo soonaha deganaa dulbadiiba waxay bilaabeen inay xaroodaan. maalin haddii la la'aayo la weysanaana waxa weeye xoogaadeen dulbadiiba waa ka soo baxay hadana isagoo rasaastiisii wata oo wax allaala wuxuu haleelayo Soomaalida caladiisa jooga ama uu ishaaran karo xabad la dhacay. alla uma suurtagelin inuu kuwa kaleeto la helo. hase ahaatee booliskii askartii nawaaxiga joogtay dulbadiiba way timi isagii baana xabad madaxa lagaga dhuftay oo isagiina halkiiba ku ruuq magaranaysa ay baxayde ku geeriyooday. marka wuxuu noqday mid walaaladiis adduunka dhaafiya iyo kuwii ka yaryara isagiina sila adduunka ku dhaafa 24 saac gudahood ayayna xaaladaas iyo dhibaatadaas u dhacaysa. haddaba ninka kale dee mid xasuustay ma ahayn carruurta inay walaalihiisii inay hooyadiis dhashay in aabihii dhalay inuu ka weyn yahay dareenkaas oo dhan mid uu galay ma uusan noqon kaliya wuxuu ku fikiray dilka dhasha. marka waxa la soo oran karaa qof kasta oo dameer la hadii uu ku fikiro uu dareemi karaa waxa kale inay yihiin qorshe laga shaqeeyay. ninkan inuu diintii wax ka sheego inuu diintii ma garanaysa ihaano u arko iyo inuu walaaladiis oo ahlu quraan ahaa cibaadada jeclaa rasaas la doonto oo wax lagu lamaayay. waxaan hadalka uga galnay sidaan ogsoonay qolooyinka kan Mareykanka iyo ma garanaysa qaraabada iyo qoys inay kugu diraan waxba kuma aha haddii aad adigu tahay mid u jaran jaro ficladooda jecel oo boqor faadkii Sacuudiga waxa loo soo diray mid uu adeeriyahay dabeetana la yiri adeerka darajaad helaysaa isagiina waa la dilay. marka kan weyn aragti ahaan
dee ma garanaysaa waaba inan dhalinyaro aho walow uu garan waayo kuwii ka yaryaraa walaaladiisa dee damiir ay ku yidhaahdaan walaalada dil qur-aana kan iyo khayra kan iyo qur-aan waxa kan ay akrinayaan wax wanaagsan maaha waa wixii hadday doonaan ay magaranaysaa dee ihaano uga dhigayaan hadday doonaan waxaa odhanaya sababaha ay hooyada iyo aabbaha u geeriyoodeen waaba ujeedada iyagoo magaranaysaa dhasha iyo dhallaanka soomaaliyeed nacsiinaya diinta dee maantana dhalanteedka ay keentay waad aragtaan oo mid kaleeta haddaad ifaalo uga qaadatana waxa weeye dhasha iyo dhallaanka ay caddaan ku qaadanayaan faa-iidada iyo waxa laga dhexlaayo inaysan magaranaysaa ay ahayn dee wax wacnayn marka waxa weye waxyaabahaas oo kale waxa loo baahan yahay in bulshada soomaaliyeed cashar ay u qaadato ilmaha kan soomaaliyeed ee caddaanku ay qaadanayaan oo magaranaysaa dee kornimadooda leeyihiin oo waalidiintii dhalay qaarna qabyaalad iyo waxaan qowl wacan ahayn ku mashquulsan yihiin qaarna adduun iyo waxaysan macna ku keenayn war dhashiina ka fikera oo dhibaatada ay keenayaan waxaan dhayal noqonayn bay noqon kartaa dib u eega dhashiina oo tan kale ilaahay kuma darnaadee qurbaha loo soo qahay waxa la doonayaba ujeedkaasu ah kii masaajid gala dee waa idinkaa arkaya si un baa loogu dacday waxaa la doonayaa dhalinyarada kaleeto ee soomaaliyeed ee jeclaysta masaajidka islahaa ee da-adda dhalinyaradaa ahaa in ma garanaysaa aysan masaajidba ku fikirin inaysan cibaado ku fikirinba inaysanba qur-aanba akrinba inay salaadba cid ka saarin oo isa tujinba masaajidka hadirtaa labada dhalinyarada ee ay tujinaysay aad arkayseen qur-aanka iyo balaaqada ee bahaysiiyey ee walaalkood dilay soomaalida aagga iyo nawaaxiga iyo soonaha degan horta waxa waajib oo saaran inay aaska ka qayb galaan oo la buux dhaafiyo oo way mudnaayeenoo loo gurmado wax kale la dooni mayo waxaa la doonaya in dhalinyartii la cabsi geliyo dadkii khayr lagu abuuro la naxdin geliyo masaajidadii ay ka cararaan dhashii iyo dhallaankii qur-aanka la barayay ay ku fikeri waayeen inay masaajid tujiyaan mid kastoo dhalinyaro ah oo boqoys adabal adduunba maanta ma garanaysaa macnihiisii doonaysay ama adigana beri toolo lagu dilaa waxaas waa aragtidooda iyo ujeedka ay ishaaranayaan marka waxa weeye waxa lama horaana bulshada soomaaliyeed war waxa ugu wanaagsan oo adduunka haddii lagugu dhibaateeyo lama horaanku waa inaad ku dhegtaa waa diintaada marka bulshada soomaaliyeedna de maanta iyo sabanka aynu joogno waa kuwa dhaqankii iyo diintiiba ka tegay diintoo laga tagaana de dhaqan dhoormi maayo wax walba iyada lama horaan iyo waxa weeye kowka waxa weye ilaahay hayna xafido dhacdadaas ugubkaa waan maanta maqlay aada bay qalbigayga ugu taabatay dhalinyaradaasuna waxa weeye hadde ilaahay casa wajallaha waxaanu ka rajaynay inuu jannadii firdowso hoygooda ka yeelo waxa ayaan kuwa waalidiintood khayr u shaqaynaya yaryara qaarkood aanan qaangaarin ilaahay kuma daarnaadee qur-aan afka ku haya bil cibaado aadanaha magaranaysaa muslimiinta iyo soomaalida tujinaya oo gacan ka xaqdaran dishay oo weliba gardaro lagu dilay waxa weeye meel khayr bay iyagu jiraan maanta waxa dhib qaba kii damiirka xumaaya waxa weeye dulinimada ay geystay isaguna daqiiqada ka damay waxa weeye marka ilaahay bulshada soomaaliyeed daryeel iyo daawaha siiyo waxa weeye diintiisa ha u leexiyo waxaase lama horaana soomaaliyeed xaalad adag iyo xilli adag baa lagu jiraa inaan wax kasteenu arkayno fiirada iyo ficilka aan waxa weeye diraasaad ka qaadano oon dhasheena uga digno oo aanu ogaano ilaahay dhasha iyo dhallaanka waxa weeye hanoo ilaaliyo barnaamijkan oo kale intaan dib ugu kulmayno warsan iyo war khayr waxaana leeyahay bulshada soomaaliyeed ee nawaaxiga iyo soonaha degan maraykanka ay daawanaysa usii sheergalaya kuwa kaleeto si ay dhalinyarada jinaasadooda iyo xabaalahooda uga qayb galaan oo alwaada beerka beelna dee meesha ay noqoto meel camiran oo la dareensiiyo bulshada islaamka ah iyo kuwa kaleeta cadowga ahba in dhalinyartaas ay yihiin kuwa laga wada damqaday dareenkuna uu diiday dulmigaa lagu dilay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.